بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركز لي عبد محمود سو dhawaada saaxiibada qaaliga ah waxaan maanta rabaa inaan wax yar ka taataabano shortcut-ka waxa loo yaqaan ama wadooyinka gaagaaban ee barnaamijkeeni office-ka Word marka waxaynu hadda aynu tijaabin doonaa shortcut waxa laga wadaa inaad halkii aad mar walba aad wax wada dheer u soo mari lahayd inaad wada yar gaaban u soo marto for example dad rabto inaad qoraalkan copy-so kale inaad highlight gareyso kana control C aad qabato taasi oo ah in maanta qoraalkii aad copy-so haddii baad intaan aad isla qabato computerkaaga oo aad highlight saartay qoraalkaaga mar labaad ay ku copy-ismaya si aad markaa dib ugu dhigto haddana waxaad qaban doontaa control iyo V taasna waxay soo celin doontaa qoraalkii oo dhameystiran marka waxaynu ku xijin doonaa oo kale control Z waxa iyadana loo isticmaalayaa inaad control X waxa loo isticmaali doonaa inaad cut gareyso dhammaan qoraalka haddii aan rabno qoraalkan aan markii hore soo qaadan inaan cut gareyno waxaan control X marka isagana saas ay ku tagayaa shortcut-ka yar ayaan wadanaa insha Allah waana qaab yar advanced marka saas aynu wada soconno waxaan ku sii xijin doonaa inaad ka noqoto haddii midna qoraalkii uu ka tirmo oo kale see ku helaysa qoraalka uu sax kaga tirmo iyadana waxaad qaban doontaa control iyo Z ayaad iyadana qaban doontaa ka bacdi qoraalka saas uu soo laaban doonaa control iyo Z waayahay waxayna ugu xigi doontaa inaad haddana qoraalkii dib u celiso ama aad re-undo sii tiraahdo iyadana waxaad qaban doontaa control iyo Y waxayna intaan inahan waxaan kaga gudbi doonaa inta yara basic-gaasi uu qofku ula qabsado waxaynu geli doonaa kuwo yara advanced marka insha Allah waan halkaan aan ku qori doonaa saan oo kale marka ka bacdi ayaan sameyn doonaa iyadoo practical marka hadda si aad u sameysato line dheer baad rabtaa inaad sameysato matalanba waxaad qoraysaa 3 minus marka enter ayaad leedahay waxaana kuu sameysmaya immediately line-ka dheer saad u jeedo xarafka minus ee computerkaaga ay saddex jeer taabanaysaa enter ayaad taabanaysaa marka waxa kuu sameysmaya line-ka dheer ee toosan waayahay haddii aan rabno laba line oo dhuudhuuban oo isberberyaal waxaan sameyn doonaa waxaan qoraynaa equal waa triple equal enter ayaan leenahay saad u jeedaa halka waxaa kaaga sameysmaya line-ka dheer waxaad hadda matalan rabtaa sidoo kale in aad meel kale qoraalka ka bilowdo hadii qoraalku left alignment uu joogaa halkan right alignment waad ka dhigi kartaa adigoo dhinacaan taabanaya sidoo kale center waa ka dhigi kartaa balse waxa jirta waxaad rabtaa meelo gaar ah marmada rabto oo taariikhda iyo waxyaalaha waxa jira meelo gaar ah lagu qoro double click ayaad siinaysaa meesha aad rabto iyadana waa double click hadaad meel siiso oo mouse-kaaga laba jeer double click tiraahdo waxa dhici doona meesha inay istaago arrowgii ama falaadhii qoraalka tilmaamaysay inaad qori karto waxaynu ugu sii xigi doonaa si aad u qoraal si aad center-ka u geyso waxaad rabtaa matalan qoraalkan double click-kan inaad center-ka geeyno waxay ahayd inaan halkaan tagno laakiin waxaa lagaaga sii fududeeyay inaad qabato control iyo xarafka ama W-da kugu xiga computerkaaga haddii aan control qabano waad u jeedaan wuxuu tagayaa bartanka ayuu tagayaa taasna waxaa kaa caawin doonta inaad qabato control plus xarafka waayahay haddaan intaa qabano hadda iyadoo qoraalkeenu saas oo kale yahay aan dhahno control wuxuu tagayaa centerka haddii aan rabno inaan horay aan u celino iyadana waxaan qabanaynaa control iyo M oo sii durkaya markasta control M qabanto ilaa waxa kale uga baxo iyadana uu sii durkaya control plus M xarafka M aad la qaban doontaa waayahay control E oo ah center iyo control M oo ah inuu sii durkiyo iyadana geeska uu sii durkiyo waynu aragnay haddii aad rabto inaad waxaad rabtaa inaad xisaab qorayso waxaad rabtaa inaad halkaaga calculation ku xisaabsato halkaaga aad jooga ayaad calculation-ki xisaabsan karaysaa iyadoo oo shortcut-ka ayaanad sameysan karaysaa waxaad qaban doontaa control iyo F9 marka curly braces ayaa ku fudmi doona control F9 aan halkaan kugu qoray iyadana si aad ula socoto qorana control plus F9 haddii aad inta keyboard-kaaga qabato curly braces-kan ayaa ku furmaya waxaad markaa ka hormarin doontaa calaamadda equal-ka marka aad leedahay 2 plus
5 times 4 haddaan intaan aan qabano enter waxa uu immediately sorry waxaan leenahay right click ayaad oranaysaa waxaana halkan kaaga soo bixi doonaa calculation ay ku taalo update field markaad taabato waxaa kusoo bixi doona calculationka meesha gashatay iyadana waxaad ku sameynaysaa sida equal calaamada equal unbaad curly braceska kusoo furma ayaa waxaad ku qori doontaa calaamada equal xisaabta aad doonaysa ayaad qoranaysaa inta goday doontaa ka koobnaato isku ka geenaya isku ka dhufanaya dhammaan isaga ayaa hawsha qabanaya waayahay waxaan rabnaa inaynu ku laabano original format baa jira ay leedahay barnaamijka Word oo default ku ah haddii baad rabto inaad original format ku laabato text aan original format ka ahayn oo kale aad meel ka soo qaaday oo kale haddii doonayso inaad qabato waxaad qaban doontaa control iyo space marka hadda waxay inoogu taagan tahay originalka aniga defaultiga sidan ay ugu xiran marka hadiiba ay sidan oo kale ku tahay aad control iyo space ka qabato wuxuu ku celi doonaa defaultiga programkaaga wuxuu ku celi doonaa defaultiga programkaaga marka aan meel hoose kugu qoro si aad ugu laabato original text waxaad qaban doontaa control iyo space labadaas ayaa ka caawin doona control waxaad la qaban doontaa space waayahay waxaynu sidoo kale aynu halkan ku sheegi doonaa waxaad doonaysaa inaad delete garayso mar walba xaraf dhammaystiran haddii hadda aan saan oo kale dhaho mar walba hal xaraf aa dhidmaya laakiin haddaan doonaysa sentenceskaas oo dhan inaan dhilido waxaan qabanayaa control markaasaan backspace ka la qabanaya waa control waxaan la qaban doonaa backspace waxay iga caawin doontaa inaan hal mar tiro halkii qoraalba inaan hal mar tiri karo ayay iga caawinaysaa halkii aan maanta oo dhan backspace ka hayn lahaa haddii uu jiro matalanba waxaad haysataa erey dhextaala markaad gabayo iyo xood qorisaa ama erey kale oo aad mar walba kugu soo laalaabanaya baa jira Soomaali kale dhextaal baa lagu oran karaa marka erey dhextaala baynu la haysanaa dhextaalkeenu waa gabay ereygaas oo kale matalan ba ku qoran ereygan waxaad doonaysaa mar kasta oo aad qorto erey inaad mar kasta oo aad doonayso inaad qorto inaad shortcut u samaysan karto erayo fara badan ama sentence ama maaragtay paragraph marka iyadana waxaad tegaysaa file waxaanad kasii xulanaysaa options waayahay waxaynu nidhi options ayaa kuu soo baxaya options markuu kusoo baxo waxaad kasii xulinaysaa proofing waxaanad kasii xulan doontaa autocorrect option halkan ayaad markaa waxaad gashan doontaa shortcutka aad doonayso matal erey kastoo aad doonayso hadda haddaan gashado lineka taagan sidaan ayaad lineka taagan u gashan karaysaa inaad markaad lineka taagan qabato ama aan ka dhigano plus marka haddaan shift iyo plus hadhow isla qabano dhextaalkeennii baa meeshaas kusoo qormaya marka shift plus oo kale adigu waxa aad doonayso halkan u badgelinaysaa shortcutka aad doonayso unbaa kuu muhiima inaad halkan gashato immediately marka waxaad leedahay add ayaad leedahay dhextaalkeenu waa plus buu halkan kusoo dhigayaa sidaan waxaad ku ogaanaysaa inuu ereygaasi kuu galay autocorrectgaaga isla markaana mar kasta oo aad ereygii u baahato inay qorto waxaad qabanaysaa control iyo plus sorry waxaynu dooranay mid hadii goor waxaa lagaga baahan yahay inaad doorato shortcut aan office u register garaysnayn marka nomara waad ku bedelan kartaa ay erey oo aad u baahan tahay halkan ayaad dhextaalka waxaad ka dhigan karaysaa inaad qabato bilmetal lambarka yare underscore ka yare 1 xagga ka xiga inaad add tira marka mar kasta oo aad bahalka yar qabato waxaa kuu suurtagelaysa inaad immediately aad ereyga diiwaan geliso waayahay waan hadda aan tijaabino waxaan doonaynaa inaan matalan dhextaalkeeni qorano waxaan qabananaa shift iyo calaamadda yar 1 ka horeysa marka calaamadda yar baan hadda u doortay inay calaamadda yar ay ujeedaan ayaan taabtay iyo hal mara iyo shift baa isla qabanaysaa marka shift waxaad la qabanaysaa calaamadda yartan
marka dhextaalkii ayaa saas u dhigmaya marka markastoo qabato waayahay waxaynu taa uga sii gudbaynaa haddaan rabno qoraalkeenan aan capital u rabno waxaan rabnaa inaan qoraalkeenan capital ka dhigno wax kale taaban mayso waxaad qabanaysaa shift iyo F3 shift iyo F3 baad isla qaban doontaa halkan calaamadan ay ahayd waayahay haddii aad rabto capital letter ama small letter halkan ay ka kala bedelaysaa waxaad leedahay highlight baad leedahay qoraalkaagii waxaad qabanaysaa control iyo F3 immediately wuxuu ku noqon doonaa sorry waxaan leeyahay shift iyo F3 ayaad qaban doontaa wuxuuna ku noqon doonaa qoraalkaaga mid capital immediately wuxuu ku noqon doonaa shift iyo F3 baad isla qaban doontaa waad ujeedaan capital letter buu noqday marka hore small buu ahaa marka shift iyo haddaad isla qabato iyadoo qoraalkaaga highlight garaysan yahay F3 waxaa dhacaya in qoraalkaaga uu capital letter noqdo haddaad markale ku celisana wuxuu ku noqon doonaa far yar yar ama small letters waayahay waxaad rabtaa inaad page ayaa jira hadii goor ka balaaran karaa ama waxaad rabtaa inaad page balaariso page kan hadda inagu soo xiga waxaan rabnaa inaan ka dhigno page landscape maadaama kan portrait yahay oo dhinaca jiifa marka iyadana waxaynu qaban doonaa alta iyo bsp alta waxaan la qabananaa xarafka bsp intaas ayaan qaban doonaa bsp b da taabanaysa s ba taabanaysa hadana b ba taabanaysa marka waxaa kusoo bixi doona daaqadii page paragraph ama page layout ka laga maamulay marka alt bsp baan leenahay waxaana inoo soo bixi doona alt bsp waayahay wordkayga yar culus sorry waa kan saad u jeedaan halkan ayuu kaaga soo bixi doonaa landscape iyo portrait marka haddii aad kan doorato whole document waa halkan kaaga xiran marka tanna waa inaad bedeshaa oo aad ka dhigtaa this point forward marka markaad sidaan tiraahdo immediately page-kaaga wuxuu isu bedeli doonaa page-ka jiifa page-kii labaad baana jiifsanaya maadaama kan aad ku samaysay haddana kan ayaa jiifsanaya marka waa kan page-kan ayaad saduntu ka yeeli doontaayo landscape-kii ku noqonaya waayahay waxaynu ugu xigi doonaa qoraal matalan ba waxaa inoo qoran table ba halkan inoogu samaysan table yar oo kooban baan ku samayn doonaa tablekaas waxaynu doonaynaa inaynu u bedelno inaynu tableka qoraal u bedelno waan rabnaa waayahay table ayaan leenahay waxaan leenahay inahaan ba inooga dhig waxaan rabnaa tablekan ayaa waxaa inoogu jira xisaabaad iyo alaab waxaan rabnaa tablekeenan ayaa waxaynu ka rabnaa inaynu u bedelno qoraal caadiya waayo tablekii waxaynu highlight ku sameynaa tablekeeni waxaynu tegaynaa layout waxaynu ka xulanaynaa convert to text way tabs baa loo dhaxaysanaya buu ku leeyahay marka tabsku waxa weeye inuu kala durdugsanaado waayahay sidan ayaan leenahay sidaad u jeedaanba qoraalkeeni isagoo habkii tableka u samaysan ayuu haddana wuxuu noqday table marka iyadana waxaynu ka tagnay inaynu tablekeeni aan layoutkiisa tagnay convert to text un baynu wax kala beenaasabeen haddii aad sidoo kale rabto inaad ku celiso table iyadana waxaad tegaysaa insert table ayaad tegaysaa halkan ayaan waxa ka dooranaysaa convert to text table waayo sidan ayaad ugu sii daynaysaa immediately tablekeeni ayaa sidaas kugu samaysmaya iyadana waa shortcut yar oo iska fudud oo intii aad table maaragtay maanta oo dhan kareyn lahayd table haddaad text haysato aad table uga dhigi lahayd haddaad table haysatana aad text ugu celin lahayd waayahay waxaa jira qoraal aad qoratay oo for example hadda qoraal baad qoratayba sidaan oo kale baad haysataa waxaana doonaysaa in aad listi baad haysataa matalan waxaad rabtaa listi qaabkan oo kale waxaana rabtaa inaad hal paragraph bedesho waxaad qaban doontaa xarafka control iyo g control
plus g ereygan ayaad qaban doontaa waxa dhacay fiirsan doonaa control plus g haddaad qabato qoraalkaaga ayaad highlight garanaysaa control iyo g baa qabanaysaa xarafka g meeshan ayaa kusoo bixi doontaa waxaad xulanaysaa meeshan ayaad xulanaysaa replace ayaad xulanaysaa marka halkan waxaad gelin doontaa number 6 ayaad qaban doontaa computerkaaga shift adigoo la haya iyo xarafka b halkan waxaad gelin doontaa waxyaalihii u dhaxayn lahaa marka waxa u dhaxaynayana waxaynu ka dhigi karnaa comma oo kale si ay maartay comma ugu dhaxayso qoraalkeena marka waxaan leenahay comma si qoraalkeena comma ugu dhaxayso replace all baan leenahay saad u jeedaan waa kana saad u jeedaan qoraalkeena waxaan doonayaa inaan word wax wadartan wuxuu noqday one paragraph marka horena wuxuu ahaa list soolia ee hoos yaalo taxanaa waayahay haddii aad copy fara badan ayaad qaaday matalanba copygan oo kale ayaad control copy ayaa nidhi copyadan faraha badan haddii aad u baahato inaad dib u hesho maxaad samaynaysaa copyadan multiple copy baad meelaha kasoo qaadatay waad weydi ama mid mar walba midka u dambeeya unba ka haystaa marka copyadii hore ma garanaysa meelaha ka keento waxaad taabanaysaa meeshaan yar ay ku qoran tahay clipboard halkan yar ayaad dhag siinaysaa marka daaqadan kuu furmaysa waxaa soo gelaya copy kastoo aad samayso marka mar kastood copy samayso halkan ayuu soo gelayaa wax kastoo aad copyisana halkan ayaad dib uga helaysaa marka mar kastood copy taabato immediately hadda ereyga hadin backspace taabano in copy dhahno halkan ayuu soo gelaya marka ka doonaysaa ayaad hadhow ku sii deynaysaa meeshii aad doonaysay iyadoo aadan isdhibin marka waa kan dhammaan saan dib ugu soo celinaya taasna waxaa la dhahaa clipboard oo waa muhiim waana waxyaalaha shortcut la odhan karo wax badan ka caawin kara haddii aad tahay dadka sida maalinlaha wordka u isticmaala waxaa jira sidoo kale meel la dhaho tell me wax kale maaha waxaad garan weyday file kamid ah wordka ayaa lagu sheegay laakiin wad weyday new table baa laga samaystaa lagu laakiin table wad garan weyday halka ayaa table ku qoraysaa wax kastoo related la leh table ayaa halkan kaga soo bixi doona haddaad doonaysid table of content oo lagu sameeyo bookta haddaad doonaysid table oo aad table ku samaysan karto haddaad doonaysid table arrays oo aad table ku delete garan karto iyo haddaad doonaysid split table oo ah inaad tablekii laftigiisa aad kala qaybiso marka iyadana waxay ka caawinaysaa wax kastoo aad weydo inaad halkan ka raadsato oo si yar automatic ah uu kugu soo saaro ayay ka caawin doontaa waxaa sidoo kale jira wax la yiraahdo file destination wordkeeni baa khalkhal galay afwan waynu iska wadanaynaa waxaa jira wax la yiraahdo file ku meesha uu yaal file kasta wuxuu leeyahay location iyo destination u gaar marka file kasta wuxuu leeyahay location iyo file u gaar ah marka kaas ayaadna mar walba aad maartay afwan meel badan aynu u dirdirnay ama rab badan siinay uu ku yara wareeray maara oo sii wadanayna waxaa jira matalanba file ayaad galaysaa ama file ayaad samaysanaysaa mana ogid meesha ku yaalo in badan way dhacdaa in qofku uu file uu sameynayay waayo haddiiba aad weydo fileka aan garanayn meesha ku yaalo waxa aad tegi doontaa options sidaynu markii hore u tagnay halkan ay options ka tegaysaa backstage ka qabanaysaa option baad tegaysaa marka waxaad xulanaysaa save halkan waxaa kaga soo bixi doona default location oo ah filekan meesha markii horeysa lagu aasaasay marka haddii hadda aan doonayo inaan tutorial dhigo ama aan file kale oo computerkayga dhexdiisa dhigo immediately meeshii baan dooranayaa okay aan leeyahay marka locationkii halkan ayuu u wareegayaa desktop ayuu hadda u wareegay okay aan leenahay immediately filekii waxaad ka helaysaa desktop waana qaab fudud oo aad ku heli karto mar kasta haddii aad u baahato inaad mastaradan la soo baxdo mastarada hadii goor ka caawinaysaa inaad paragraphyada iyo isla siinto waxyaalaha aad qorayso marka haddii aad doonayso inaad mastarada la soo baxdo waxaad qabanaysaa alt plus w s marka intaa waxay ka caawinaysaa inaad alt plus w r alt waxaad la qabanaysaa w r way qarsoomaysaa waxaad qabanaysaa alt w r way soo baxaysaa marka waa alt plus w plus r waxaad qarinayso iyo hadaad soo saarayso labadaba mastarada waxaa ka caawinaysaa inaad
marka inta ayaad ku qoraysaa markastoo mastarada aad doonayso inaad qarisaan soo saarto. haddii aad doonayso inaad table soo geliso ka hor, marka hore tableka halkaas ka teganay, laakiin hadda waxaynu kusoo gelinaa shortcut. marka waxaad qabanaysaa alt n plus t, alt n plus t baad qabanaysaa, waa alt plus n plus t. intaan ayaad qabanaysaa, waan kuu qoray, waxaan samayn doonaa iyadoo practical. marka alt baan qabanaynaa n iyo t. saa ujeedaan waa kan tableka inoo soo baxay, waynu save karaysaa. waaye waxaynu rabnaa inaynu tableka row kusoo darno. haddaynu rabno inaynu tableka row kusoo darno, meeshaan rabnaa ayaynu tegaynaa, waxaynu qabanaynaa alt plus a plus I plus a. marka intaan waa shortcut dheer, laakiin dhib ma laha. markii hore sidii markii hore aad samaysanayso baad samaysanaysaa, waa alt a I a. waa kan number of rows, hal row ku darbaan leenahay, qaabkan ayuu kusoo darayaa. waaye isagana waxaa jira columnkii sidaynu ugu soo daraynaa. columnkii isagana waxaynu ugu soo daraynaa rowgayn rabno, meeshaynu rabno inuu columnkaasi inoo galo baynu highlight garaynaynaa. waxaynuna qabanaynaa alt plus a plus b. sorry, kii hore maan qorin, kii hore halkan ayaan ku dhex qorayaa. kan waa rowga waxa weeyaan alt waad qabanaysaa computerkaaga, waxaad la qabanaysaa ereyga a ama a ama a, waxaanad la qabanaysaa I, waxaad kaloo la qabanaysaa a haddana. intaan markaa daawata ayuu rowga kusoo boodi doonaa. waayo waxaa jira isaguna column seen ku gelinaa. columnka isagana waxaynu kusoo saarnaa isaga ka yar fududba, waa alt iyo plus iyo a iyo b. intaan hadda qabato isagana waxaa kusoo bixi doona column. waayo columnkan aan tijaabino, rowgan ayaynu matalanba aynu odhanaynaa saas oo kale waa highlight garaynaa. waxaynu qabanaynaa buu yihi alt a plus b. waayahay, waxaan leenahay alt a plus b. waa inaad marka hore rowga aad doonayso inaad wax ku darto, waa inaad ku highlight garisay, markaasaad qabanaysaa shortcut. marka haddiiba uu markii u horreysay taabanaysa tahay, waxaa laga yaabaa inuu waqti ku qaato inuu maaragtay soo helo, maadaama dhaatadu ay ku fara badan tahay ama waxyaalaha aad u dirayso. waayahay, waxaynu iyadana jirta how to delete rowgii. haddaba sidee baynu shortcut ugu delete karnaa? row baynu deleteynaa. waayo row waxaynu delete karnaa inaynu qabano alt plus baan qabanaa plus a plus waxaynu leenahay d plus r. marka intaan waa delete row. waaye aynu isku dayna isaga inaan delete-no, kan aynu dooranaa. waxaan leenahay ninkaan ayaan rabnaa inaan saarno, kan ayaan highlight garayna. waxaan leenahay alt plus a plus d plus r. waaye markaan waxa mid walba wuxuu raadin doonaa inuu access gareeyo keyga aad markaa xulatay. marka keygii ilaa uu soo xulo had iyo goor shortcutyada adagoo kale waxaa laga yaabaa waqti inay ku yara qaato. marka u yara samir alt plus a plus d plus r. intaa markaa taabato tablekii iyo propertieskii wax kusoo baxaya oo aad doonayso aad ka xulanaysaa. waaye aynu iyadana samayno inaynu samayno split tablekan laftiisa ayaan rabnaa inaan kala qaybino. tableka korkiisa ayaan tegaynaa. tableka waxaad u kala qaybinaysaa control shift enter. way split baan leenahay, split table. way tableka si aynu kala qaybino, waxaynu qabanaynaa control, waxaynu la qabanaynaa controlka ereyga loo yaqaan shift, waxaynu la qabanaynaa ereyga loo yaqaan enter. way aynu intaan samayno control, halkan ayaan tegaynaa, labaynu ku kala dhigaynaa. waxaynu qabanaynaa control shift enter. way waad ujeedaan tablekeenii kulligii ayaa soo boday. sorry, marka aan ku celinayna. waxaan leenahay control, waxaan maleeyaa in meel kamid inaan joogto ay muhiim tahay. control shift enter. waayahay, control shift enter. saad ujeedaan waa kan halkan ku kala booday tablekeen. marka waa split ama kala qaybin. waaye si aan dib ugu midayno waxaan leenahay waxaan leenahay control, waxaan leenahay alt, waxaan la qabanaynaa a, waxaan la qabanaynaa m. intaan ayaan dib ugu midayn karnaa. waayo waxaan leenahay alt
am aynu horta mid kamid dhex tagno alt am waxa weeye weli wuu access gareynayaa markaa access gareynta ayaa waqti ku qaadanaysa markaa noo maara alt am still wayna diidaya laakiin sidaan baad iyadana u samaysan kartaa si aad u eegto inaad spellingka saxda eegto haddii intaanoo kale way naga khaldan tahay iyadana waxaad qaban doontaa check spelling si aad spellingkaaga aad u eegto inuu sax yahay kale iyadana waxaad ku eegi doontaa waxa weeye alt iyo shift kaliya alt iyo a iyo f7 I think alt plus f7 ayaan iyadana tijaabino waxaan leenahay alt f7 maxaa dhacay waa kan waxay noo soo saarayaa wixii uu maleeyay erayadii uu maleeyay intaas shortcutkaas ku wareegay markaa waayahay waxaynu tirinaynaa waxyaalaha inoo qoran iyo waxyaalaha aynu doonayno to count all elements pages tables pages iyo paragraphs I think paragraphs waxaas oo dhan markaad doonayso inaad ogaato inta habad ka haysato waxaad leedahay control waxaana la qabanaysaa shift j xarafka j intaa markaa qabano aan qabanayna control shift j way word pages ka hayso waa kan words ka aan qornay character noise spaces ka character with spaces paragraph ki lines ki dhammaan code-ka ay ku sheegay markaa waxaad doonaysaa inaad matalan waxaad haysataa alphabetics a d b waxaad haysataa f waxaad haysataa c marka intaan ayaad doonaysaa inaad alphabetically aad u habayso maxaad samaynaysaa iyadana codekeedii ayaad iyadana code ayaad ku gelaysaa marka waxaan leenahay shortcut ayaad ku gelaysaa malay sorry waa alt baynu qabanaynaa waxaanu la qabanaynaa waxaanu la qabanaynaa s waxaanu leenahay enter wayaan iyadana samayno waa alt s enter way dhammaan buu highlight garanaya marka si aynan taasi u dhicin waa inaynu inagu highlight garano inta ay doonayno marka inta aynu la qabanaynaa alt s enter waa kan hore inaga soo saaraya ascending iyo descending waa kor iyo hoos inuu maartay kaaga soo tiriyo marka haddii had saarhana waa u jeedaan a iyo d baa isku xiga a iyo b iyo c iyo d iyo f isku xigi doona way aad jeed boom waayahay waxa iyadana inoogu sii xigi doona insha Allah taala inaynu sii wadno shortcutska iyo waxyaalaha muhiimka iyo maartay home tabskan inaynu wax kasto oo ku guda jiro oo marka aynu isdhaxno qofka way anfacayaan inaynu sharaxaad kooban aynu uga soo bixino sida halkan oo kale oo farta laga bedelayo farta size-keedii inaad bold ka dhigto inaad italic ka dhigto oo yara jijifiso underline inaad ku samayso inaad kuyibiki ku samayso halkan script iyo inaad maartay jibaarka halkan ka samayso script sidoo kale inaad far text effect halkan kaga darto textiga inaad background ku darto textiga colorkeedii arrays inaad ka tiraahdo dhammaan formatting aan sameeyay capitalization-kii iyo maartay sentence case-kii iyo dhammaan inaad fartan iyadii kala duwanaa u kala bedesho tana waa inaad lambarka kor u qaadiyo inaad hoos u dhigto halkan font size-ka marka insha Allah inaynu saan dhammaan aynu u wada sharaxno halkan oo kale waa meesha textiga laga gedgediyo ama aad ka geyso centerka ama maartay left right iyo side right iyo inaad bartanka ku habayso halkan oo kale waa inaad background-ka dambe aad ku shubto color halkan oo kale waa inaad border-kii aad ku wareejiso border dhammaan textigaaga find and replace waxaa loo isticmaalaa inaad erayo aad ka raadin karto oo maartay aad ku bedeli karto eraygan hadda matalan ba halkan cawl haday ku taalo aad leedahay meel kasta oo cawl ay ku jirto page-kayga waxaad ku bedeshaa cawl raadi baad leedahay find marka uu soo helayaa waa kan waxay la garanaya waxaad leedahay waxaad ku bedeshaa Umar isla markiiba replace ba ku sameynaysaa Umar ayaa kugu bedelmaysa marka haddii page-ka meelo badan oo waxyaalaha aan garanay ay kaga jiraan oo doonaysa inaad magacaaga ku bedeshaa ama wax kale saas oo kale ayaad sameynaysaa waxaan sidoo kale ka hadli doonaa xuquuqda qoraalada iyo maartay inaynu
citation kii iyo maartay aynu iyadana kusoo darno in citation aad leedahay kusoo dari karto qoraalka inaad outerkaaga aad ku xidhi karto in infoga inaad outerka uu mar walba kusoo saaro magacaagi iyo in protected password ku sameyno oo aad ka dhigi karto xataa in last markaas final in final ka dhigno qoraalkeena iyo inaad restricted access ku sameyso iyo inaad encrypted password aad password ku xidhato insha Allah home tabska maalin walba inaynu mid wax ka soo sharaxnay isku daynaa aad ayaad mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waan ku dheereeyay raali ahaada.